dowladda waddanka Masar ayaa Soomaaliya dib ugu celinaysa 8 burcad badeed ah oo dhawaan badmaaxyeen Masaari ah ay gacanta isula tageen halkaas oo qaar ka mid ah ay geeriyoodeen qaarna si maxaabiis ahaan loo keenay xeebta Suez ee waddanka Masar. Kooxahan ayaa loo yarin u dhalatay waddankan Masaarida ay u diyaariyeen in lagu maxkamadeeyo magaalada Qaahire ee xarunta waddanka Masar ayaa haatan dib loogu celinayaa waddanka Soomaaliya qaas ahaan maamul goboleedka Puntland. Arrintan ayaa telefishinka Universal waxa uu wax ka weydiiyay danjiraha Soomaaliya u fadhiya waddanka Masar isla markaana wakiilka jaamacadda Carabta ee Soomaaliya Ambassador Cabdullaahi Xasan Maxamuud. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. waa mahadsantahay maalmahan aad baa lanoo weydiiyaa arrimahaas nimanka iyo khalfiyaadkooda dhallinyarada 8 ahaa ee laga soo qabtay meesha la yidhaahdo Laasqore waa Soomaalidu aad bay uga warqabtaa. nimankaas waxay afduubeen maraakiib laba markab oo dowladda Masar leedahay iyo 33 ruux oo maraakiibtaas ku ugaadhsanayay. si kasta waa la yeelay arrintaas waxba waa laga qaban kari waayay. markii halkan uu yimid madaxweyne Sheekh Shariif ziyaaradda Sheekh Axmed ziyaarad rasmi ah uu ku yimid oo ay arkeen walaalkiis Maxamed Xusni Mubaarak madaxweynaha dowladda Masar. madaxweynaha dowladda Masar wuxuu ka codsaday arrintaas waxaa xusuusiyay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Abulqayd arrintaa in wax laga qabto. Sheekh Shariif wuxuu ballan qaaday wax alla wuxuu juhdi dhiibi karo iyo dadaal inuu arrintaa ku bixinayo laakiin ay gacanta niman garmaqaatayaal oo dhalinyaro ah ay ku jiraan. kadib arrintaas marna lagama aamusin. annagu waxaanu safaarad ahaan annaga iyo qunsuliyaddanadu kala xidhiidhnay wasiirka arrimaha gudaha jenaraal cabdullaahi axmed jaamac ilkajiir iyo madaxweynaha markii dambe maxamed faroole kulligood waxay la tacaatufayeen nimanka masriyiinta ee walaalaheena meeshaas lagu haysto in la soo daayo. wax juhdi ah oo la hadheenna ma jiro. waxaan hubaa in dadka Soomaaliyeed uu kulligiis diidanaa dadkaas inay meesha ku xidhnaadaan muddada intaa leeg. almuhim arrintii waxay socotaba nimankii waa la soo daayey way yimaadeen. waxaan qabaa iskaashi labada dhinac ah Masar iyo Soomaali inay arrintaasi ku suura gashay. safiirka Soomaaliya ee waddanka Masar wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar maalmahan la isla dhaxmalay ee sheegaya in arrintaani darteed uu xumaanaya xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo waddanka Masar. waa kan mar kale Cabdullaahi Xasan Maxamuud oo arrintaa inoo sharaxa. ha ka yaabin waxaan qabaa calaaqaadka labada dal waa calaaqaad aad raasikha u ah buurahoo kale ah oo aan dhaqdhaqaaqaynin dabaylaha iyo acaasiirtu aynan dhaqaajinayn. waa laba dal oo walaalo ah kull almasaalix almushtaraka labada dal way u dhaxaysaa. safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Masar waxa uu gaashaanka ku dhiftay in uusan waxba kala socon qaabka lagu geynayo raggan Soomaaliya. maruu weydiiyey su'aal ku saabsan TV-ga raggan ma waxaa kaxaynaya muqaabaraadka waddanka Masaarida mise ayaga oo xura ayay ka degayaan maamul goboleedka Puntland. annaga waxaas war uma hayno tafaasiishaas ma ogin. in annaga xilka nala saaray wuxuu ahaa u sameeya bitaaqaatu safar yacni go home u sameeya oo aanan samaynin. waxaanan u marayn haddaan la rabin in dalkoodii lagu celiyo inaan la sameeyeen. annaguna dowladda Masar waa ku boorino waxaanu nihi dadkaas waxaa habboon in dalkoodii lagu celiyo oo lagu muxaakameeyo. waxaanad moodaa in warkaas ay dowladda Masar aqbashay inkastoo wax rasmi ah oo wada hadal ah oo kale aanan ka samaynin arrintaas. sidoo kale weydiiyey TV-ga su'aal ku saabsan in maalmahan walwal weyn ay qabeen rag ganacsataa oo Soomaaliyeed isla markaana halkan keena xoolaha laga isticmaalo waddanka Masar kuwaasoo laga soo dhoofiyo waddanka Soomaaliya. sidoo kale ganacsato Soomaali ah ayaa halkan ka dhoofiya 75% daawada laga isticmaalo waddanka Soomaaliya. waa kan Cabdullaahi Xasan Maxamuud oo ganacsatada u cadeeyay. si kastaba ha ku yimaadee geela Soomaalida hilibkiisa Qaahira waa laga cunaa. meesha ugu weyn oo hilibka laga iibsado ku taala Jiiza meesha duqi la yiraahdo Mustafa geela lagu qalo wuxuu ku faanaa inuu geel Soomaaliyeed yahay. waxna kama dhibayso dhibka yar iyo xagtinta yar ee dhacday labada dal iyo calaaqaadkoodii. ma qabo calaaqaadka tijaariga Masar iyo Soomaaliya inay weyn yihiin. arrintan burcadbadeedka Soomaalida oo waayahan jahwareer aad u fara badan ku abuurtay Soomaalida degan waddanka Masar si ay wax badan uga ogaan lahaayeen
qaabkii halkan amba sidii loogu maxkamadayn lahaa arrintan ku saabsan burcadbadeedka waddanka Masar waxaa cilaaqaad aad u wanaagsan oo xagga ganacsiga uu leeyahay isla markaana la keeno xoolo nool oo ay ka mid yihiin geelka iyo looda iyo arigaba iyadoo halkan daawada laga isticmaalo Soomaaliya boqolkiiba 75 laga qaado waddanka Masar oo xiriir daawo aad u fara badan waddankan leh safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Masar waxa uu ku dadaalay sidii raggaasi 8 ah loogu celi lahaa waddanka Soomaaliya isla markaana loogu wareejin lahaa maamul goboleedka Puntland mahad carab oo cali telefishinka Universal safaaradda Soomaaliya ee waddanka Masar